وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروستي أنكو قادنيني قصص في القرآن الكريم، qisooyin ilaahay uu inooga warramay si aan ugu cibro qaadanno subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, qisadan maanta aan soo qaadanayno waa qisadii aasiya bintu musaaxim. waa haweenaydii fircoon. aasiya waxay ku noolayd qusuurta ama qasriga ugu weyn wakhtigaasi jiray, viilada ugu weyn, ugu quruxda badan. waxaa u adeegayay dad badan ayaa u adeegayay. waxay ku noolayd nolol sare ayay ku noolayd. wax ka dhinnaa ma jiro. wax walba oy jeceshahay horteeda ayuu yaalay. waxayna ahayd haweeney aad iyo aad u qurux badan, maskax badan, aragti dheer ayay ahayd. haweeneydaasi waxaa guursaday odaygii fircoon ee kibray, ee qooqay, ee ilaahnimada sheegtay, yidhi ana rabbukum alaclaa. fircoon wuxuu iloobay inuu makhluuq yar oo daciifa u yahay oo candhuf laga abuuray. ilaahay nebi muuse ayuu u diray fircoon. waxaa lagu yidhi, muusow, idhab ilaa fircawn innahu taqaa. fircoon u tag, wuu qooqay, wuu kibray. faqul hal laka ilaa an tazakkaa. fircoono may kuu gaadhay oo ma u noqon rabbigaa? ma istaharo yeeli? gaalnimadan ma ka bixi iyo shirkigan ayaa lagu yidhi. weliba waahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa. ilaahaagan kugu hanoonin oon ku bari, waad ka cabsan marka rabbiga. fircoon ilaahay waxau yidhi, fakadaba wacasaa uma adbara yascaa. wuu beeniyey, wuu caasiyey, wuu daba jeediyey, uma aabba yeelin dacwadii iyo diintii. madax adkaa, xaqu diidanaa. dacwadii nebi muuse iyo haaruun ay wadeen waddankii bay soo gashay. way ku faaftay masar. gurigii fircoon dad badan baa islaamay. waxaa islaamay ninkii la odhanayay mu'minu aali fircoon. waa nin xaashiyadiisa ahaa, wasiiradiisa ahaa, qaraabadiisa ahaa, oo guriga qasriga ku dhex noolaa. kow, waxaa kaloo islaamay nin u adeegayay isaga iyo haweenaydiisa oo guriga ka adeega, oo iyadana la odhanayay maashita bintu fircawn, tii u adeegaysay hablaha fircoon ee timaha u feedhaysay.
waxa kaloo islaamay haweenaydiisa aasiya haweenayda fircoon ayaa iyaduna islaamtay axibbatii fillaah dadkii warka qaadayay dadkii wax basaasayay ayaa arrintaa maqlay fircoon iyo wasiirkiisa difaaca haamaan ayaa arrintii la gaarsiiyey waxaa loo sheegay inay dacwadii nebi muuse iyo diintii u waday inay gurigiisa ay soo gashay fircoon wuu xanaaqay wuu isqaadqaaday wuu kibray ninkiiba u yeedhay guriga ka shaqaynayay wuxuu yidhi diinta ka bax haddii kale labaan kuu kala goyn waan ku dili ninkii waa diiday diintiisu ku adkaystay kadibna fircoon wuu dilay intaa kadib haweenaydiisu gurigay ka shaqaysa iyaduna hablahan fircoon ayay timaha u feedhaa maalin maalimaha ka mida iyada oo timaha u feedhaysa ina fircoon ayaa waxaa dhacay garfeedhii baa ka dhacday garfeedhii soo qaaday istiri bismillaah bay tiri tii yareed way yaabtay waxay tidhi ma aabbahay baa allah la yidhaahdaa mise wax kalaad haysataa waxay tidhi may aabbaha ma aha rabbii wa rabbiki wa rabbu abiiki allah rabbigii aniga iyo rabbiga adiga iyo rabbiga aabbahaa waa allah tii yarayd gabadh yar oo madax adag bay ahayd gabadh yaroo sida aabbaheed waalan ayay ahayd fircoon baa u tagtay waxay tidhi aabbo gabadhanna sidii odageygii ayay diintii ka baxday ilaah aan adiga ahayn ayay caabuddaa odaygii fircoon ahaa wuu xanaaqay gabadhii yareed buu soo qabtay wuu xidhay wuu garaacay wuu dhibay si ay diinteeda uga baxdo tii yareed way diiday rabbii wa rabbuka allah bay ku tiri rabbigay iyo rabbiga waa allah wuu ku adkaystay inuu dhibuu doonayaa inuu diinteeda ka bixiyo ayuu doonayaa way diiday sida awgeed wuxuu yidhi ha la ii keeno disti weyn oo naxaas ka samaysan ha la ii keeno waa loo keenay saliid buu ka buuxiyey gabadhii waxa ku yidhi meeshaas ayaan kugu tuurayaa way qosashay oo may aabba yeelin waxay tidhi naftani waa mar may baxdaa ilaahay baan u tegi waxa uu doonayaa inuu dhibo siduu ku dhibi lahaa ayuu raadinayaa laakiin wuxuu ogaaday fircoon haweenaydani 5 caruur ah oo agoon ah inay korinayso oo gurigii ay joogaan ayuu ogaaday sida awgeed waxa uu yidhi caruurteedana soo qaada 5tii caruura ayaa ciidan loo diray waa la soo jiiday waa la hor keenay caruurteedii markay aragtay way ku dhegtay way dhudhunkatay way urursatay kii ugu yaraa bay qaaday naaskay afka u gelisay way naaskay nuujinaysaa intaa kadib fircoon waxa uu ku yidhi caruurtaasaa lagu tuuri ama diinta ka bax way diiday allahu rabbii bay tiri ilaahay ayaa rabbigaya ilaahay ayaa rumaysnahay ka gaaloobi maayo kadib fircoon waxa uu yidhi wiilka ugu weyn caruurta soo qabta ku tuura wiilkii ugu weynaa caruurta ayaa la soo qabtay kadib iyadoo oo arkaysa uu ooyayo oo baryayo hooyadii ayaa lagu tuuray saliiddii karaysay kadibna lafihii baa hoos u hadhay haragiisii baa dusha soo maray ka yar waa si ay u naxdo waa si ay u argagaxdo waa si ay diinta uga baxdo way adkaysatay kii labaad ayaa la soo jiiday sidaas si leeg wuu ooyey wuu bariyey fircoon buu bariyey laakiin fircoon ma naxariisto fircoon wuu qabtay ku tuura buu yidhi
kii yaraana dabkii iyo saliiddii karaysay ayaa lagu tuuray. diirkiibaa dusha soo maray, lafihiina way dhaadhaceen. kii saddexaad sidaasi leeg, kii afaraad sidaasi leeg, kii shanaad oo ugu yar oo naaska ay ku aamusiinayso oo ka qarinayso ayaa laga soo jiiday. lilmada ka daadanaysa, afkiisana waxaa ka sii qoyan caanihii hooyadii. waa la soo jiiday, wuu ooyayaa, hooyadii buu qabsaday, timuhuu qabsaday, xataa farihiisa waxaa laga arkayay timihii hooyadii. kadibna kii yaraa ayaa la soo kaxeeyey, in lagu tuuro markii la doonayey ayay oyday. kadibna ka yar ayaa hadlay, waxa uu ku yidhi, yaa ummaah isbirii fa innaki cala alxaq. hooyoy sabir oo adkayso, xaqa ayaad ku taagan tahay, adiga xaqa ku taagan, ha ooyin, adkayso ayuu ku yidhi. kadib kii yaraabaa lagu tuuray saliiddii karaysay. way arkaysaa shanteedii carruura oo lafahoogii ay hoosta mareen oo haragoogiina dusha u marayo. maxaad u malayn? maxaa ka naxdin badan? laakiin diinteedii haysataa, umay aabba yeelin waxaasoo dhan. axibbatii fillaah, markii iyadii la soo qaaday ee la doonayay in lagu tuuro ayaa waxay tidhi, fircoonow hal shay ma ku weydiistaa? haa buu ku yidhi, i weydiiso. waxay ku tidhi, waxaan ku weydiisan inaad lafahayga iyo lafaha ciyaalkayga intaad ururisid meel qurata aad ku aastid ayaan ku weydiisan doonaa. subxaan allah, iimaanku wakaa. fircoon wuu isqaadqaaday, gabadhii meeshii buu ku riday, sidii buu yeelay, uu gubay, u ka falaxashay khalaas. isagoo oo quslaya, isagoo oo sanka taagaya, isagoo wax ismoodaya ayuu gurigii dib ugu soo noqday. waxaa maqashay warka gabadhiisii, xaaskiisii ayaa maqashay. waa mu'minad, iimaankaygay qarsanaysaa. way ka naxday, way ka murugootay. camalka raallika ma aha, ma jecla, ma soo dhowaynayso. way ooyaysaa, way adkaysanaysaa, way sabraysaa. kadibna way ishayn kari weyday, way dhawaaqday. waxay ku tidhi, fircoonow fircoonow waad madax adag tahay, alwaylu laka maa ajra'aka cala allah. hoog baa kuu sugan, waad madax adag tahay fircoonow, gaalnimadu way kugu fog tahay fircoonow. waxa uu ku yidhi, wuu la yaabay, ma adigana waxaa ku helay waalidii gabadhii heshay oo kale ayaa kugu dhacday? maxaa ku helay buu ku yidhi. waxay ku tidhi, maa bii min junuun, ma waanli, walaakinii aamantu birabbi alcaalamiin, laakiin ilaaha caalamka oo dhan rabbi u ah ayaan rumeeyey bay ku tidhi. waxa uu ku yidhi, wallaahi waad dhiman, waan ku dili, waan ku gogoyn, waan ku sulcin ilaa aad ka gaaloobaysid ilaaha muuse aad ka gaaloobaysid. waxay ku tidhi, waxaad doonti samee, anigu rabbiga ka gaaloobi maayo marna fircoonow. fircoon markuu arkay diinteeda sida u haysato ay ugu adag tahay, waxa uu doonay inuu sasabto. midig buu kaga yimid, bidix buu kaga yimid, dahab badan buu ku agdaadiyey. wuxuu ku yidhi, bal toobadkeen, bal ii soo noqo, bal in yar cadhada isyara deji. waxaasoo dhan uma aabba yeelin. kadib fircoon wuu xanaaqay, wuxuu yidhi, qabta, gebigeyga qabta, saxraaga masar geeya, saxraaga xaggaa geeya, labada lugood iyo labada qacmood tiirkuu xidha buu yidhi, kala fogeeya oo saxraagaasi ku silciya, cadceeddaa jiifiya. waxa uu yidhi, hala silciyo, lugna meel ugu xidha, lugta kale meel ugu xidha, qacan meel ugu xidha, gacanta kale meel ugu xidha, haraad ku dila, gaajo ku dila, bilaa biyo bilaa cunto ka dhiga. 3 cisho sida ha ahaato. maalintii koobaad cadceeddii kululayd, saxraagii lama degaanka ahaa, waa haweenay guri weynoo qurux badan ku soo kortay,
nicmad ku dhex jirtay barwaaqo ku jirtay weligeed aan sili arag haweenaydaasi ee sidaa ahayd ayuu u yimid maalinkii koobaad markaasaa waxa ku yidhi aasiyay ma fikirtay ma noqotay ma isa saxday waxay ku tiri may aamantu billaah ilaahay baan rumeeyey adigana waan kaa gaaloobay maalinkii uu ku daayey maalinkii labaad sidii silaag maalinkii saddexaad sidii silaag maalinkii afaraad ayaa waxa uu yidhi uqtuluuha dila weliba sida loo dili dhagax weyn dusha kaga keenay buu yidhi oo ku soo tuura gebigeyga madaxaba baabi'iya markuu ka yaabay iimaankeyga sugnaashaheyga siday xaqa ugu adag tahay ayaa waxa uu yidhi madaxeyga gebigiisaba baabi'iya wakhtigaasi ay dhagaxa kor u qaadayeen ayay ducaysanaysay waxay tiri rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalih wanajinii min alqowmi aldaalimiin ilaahayow agtaada guri iga dhis jannada ilaahu iga dhis ilaahayow iga badbaadi fircawn iyo camalkiisa iyo qoomka daalimiinta ah dhagaxaasi waxaa la yidhi markuu ku soo socday ee lagu soo tuurayey ilaahay waxa uu tusay qusuurta iyo jannada iyo nicmadda loo diyaariyey ayuu ilaahay tusay markaasay faraxday markaasay qosashay isna wuu ag taagan yahay markaasuu yidhi alaa tacjabuuna min junuuniha waalida naagtan haysa miyaynu arkayn waanu cadaabaynaa way qoslaysaa iyaduna kadibna dhagaxii ayaa ku soo dhacay laakiin waa waqti ruuxdii ay ka baxday naftii ay ka baxday iyada oo faraxsan iyada oo bishaaraysanaysa iyada oo arkaysa jannada ilaahay meesha uga diyaariyey ayay dhimatay radia allaahu canha kadibna dhagaxaasi wuxuu ku soo dhacay jidhkeega oo meyda oy mar hore naftu ka baxday may dareemin dhagaxa culayskiisa iyo dhibaatadiisaba walaalayaal qisadaa cajiibka oo ilaahay inooga warramay ilaahay waxa uu yidhi وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله إلهي وحا أكدقي مثلا ما هو إلهي كدقي للذين آمنوا كوي إيمانك لغهل مؤمنين تأها إلهي ما هو أكدقي إيا تصالو إيا قصة وحكو قاتان امرأة فرعون هوين دي فرعون تاسا عبرة إني قفلا تاسا وانا إني قفلا تاسا هذا دون السنة إنها فكرتان فكرة إني قفلا إذ قالت مركعي تري رب ابن لي إلهي يقدس عندك أكتاده بيتا قري في الجنة جنة ونجني إقبت بادي إلهي من فرعون إقبت بادي وعمله عمل كيس حن ونجني إلهي إقبت بادي وإقكري من القوم الظالمين قوم كالظالمين تأه إلهي ودورتي هوين عقل بدن أو خير بدن أي أهيد آسيا waxay dooratay ay culimadu leeyihiin aljaara qabla daar yay jaar la noqon intayna daarta ayna dooran rabbi ibni lii cindaka agtaada ilaahayo iga dhisbay tiri baytan guri fil jannati jannada xagga ugu saraysa ayay ilaahay weydiisatay nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi khayru nisaa'i alcaalamiin dumarka adduunka waxa ugu khayr badan maryam bintu cimraan nebi ciise hooyadii iyo khadiija bintu khuwaylid khadiijo haweenaydii nebiga iyo faatima ina muxamada sallallahu alayhi wasallam iyo aasiya haweenayda fircoon nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wassalaam ragga waxaa in badan ayaa kaamal gaadhay oo dhammaystirmay buu nebigu yidhi ولم يكمل من النساء دمرك يعني دين تودا يا عقيدة تودا يا عقل جوجا
wuxuu dhammaystirmay nebigu waxa uu yidhi aasiya haweenaydii fircoon iyo maryam bintu cimraan caaishana inay dumarka kale ka fadli badan tahay ayuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waxaan ka faa'iidaysanaynaa qisadaasi dowrka weyn ay dumarku ku leeyihiin diinta iyo dacwada sida u dadaaleen rag uma ahayn dumar badan oo ka quraanku sheegaya ilaahay ba suurada idilkaga waramaya sida haweeneydaasi diinteeda ugu adkayd mabda'eega ugu adkayd haweeneyda kale ee maashada u fiirso 5 caruur oo ay dhashay ayaa naarta horteeda lagu shubaya oo saliida lagu karinaya ayna u aabayeeleen maxaa yeelay aqiidadeeda diinteeda ay ku faanaysa ahibati fillah maanta dad badan oo Yurub iyo Mareykan tagay $100 bay siisteen diintoodii $100 baa la siiyo kiniisadda ayay galeen waxaan ka fahmaynaa qisadaasi adduunkan inuu yahay maalimo wala tagi aawe fircaanka umada dili jiray xagu ku dambeeyay dadkaas oo dhan way rawaxeen dadkaas oo dhan aakhiro ay tageen ahibati fillah adduunkani waa meesha yar ee gaaban waa laga tagi aakhira loo socdaa sida awgeed qofku waa inuu sahay qaato mabda'a ugu muhiimsan aqeedada ugu muhiimsan diinta ugu muhiimsan waa inaad ilaalsatid diintaasi ilaahay ku soo gaarsiiyay dadkaasi waa lagu soo dhibay adee laguma dhibin alxamdulillah aabahaba muslima hooyadaba muslima awowgaba muslima wadan islaam baa joogtaa khayr badan ayaad haysaa aadaankii baad maqlaysaa diintii baad haysataa wax kugu qasbaya gaalnimo ma jirto sida awgeed waa inaad mabda'aaga iyo diintaada iyo aqeedadaada aad adkaysatid ayaa loo baahan yahay khayr allah insiiyo iyo xalaqad kale oo inoo soo socota qisasun fil qur'aanil kariim la socod wacan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته